gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee gobolka Saaxil Marwarode Axmed Yaasiin oo maanta shir jiraayid ku qabatay magaalada Berbera ayaa ka hadashay warshadii sibirka ee magaalada Berbera oo biraheedii dad gaar ah xukuumadda Soomaaliland inay go'goostaan waa sida ay hadalka u dhigtay Marwarode iyadoo sheegtay inay birahaasi loo iib geynayo wadanka Itoobiya marka la googooyo kadib waxaana ay xukuumadda ku dhaleeshay arintaasi raadka iska soo daba noqonaya ama gacanta Berbera ka xaqadaran ee lagu hayo ee mar walba sida khaldan laga muraadsanayo iyada oo ay noqonayso in looga dhigo dad deegaanka ana ama qaarsaar oo la yiraaho sawirku idinku dhaco laakiin xukuumadda dhexe waliba madaxtooyadu ay si gaara culays u saartay in la bilaqaysto magaalada Berbera hantidii ummadda taalay sida meesha kuuriyada oo kale warshada shamiitada alaabtii hantida ummadda oo alaab qaaliya oo leh bir xadiida silfar marka la qiimeeyo malaayiin dollar ku qiimeysan in la siiyo shakhsiyaad gaar ah waxa kale oo iyaduna kamida meelaha caanka loo bilaqaysanayo airportka xariir ciidanka duulista ciidanka cirka diyaaradihii yaalay wixii alaab taalay bariyahan waa la googoosanayay ayaan darada ugu weyn waxay ka dhacday Berbera iyada oo labadii meelood ee ahayd in baawarka gobolka isu miisaamaan labadiiba ay maanta naafa ka tahay waxa ay naafa ka tahay hadii ay noqotay Berbera in badan baan ka hadalno oo ragga loo soo dirsaday ee hantida ummadda u dhacay iyaguna muraadada yaryar ee kooban ay kaga jiraan meesha ay u gurayaan hantidii ummadda ka dhaxaysay waxa Berbera yaala ummadda ka dhaxeeyaan gobolka Saaxil aad ayay u khusaysaa oo dad baa degan oo ilaalinayo intaaba yurta laga hay hadii maanta baawarka xukuumadda siiraayo ay gurigiisa ka soo baxayso in waraaq la soo siiyo dad gaar ah kuwa halkan jooga oo la leeyahay deegaanka u dhasheen oo iyaguna aan ahayn qaar wax isku falaya ee qaar danaysi iyo lacag doon ay hayso iyagana laga soo dhigayo sawirka hore waxaan halkan ku haynaa maanta oo aan ku cadeynaynaa dhugmantii lagu soo siiyay cida gaarka oo magacyada dadku ku wada qornay dhugmantii waa ka geesta kalena waxa ay Marwarode cambaareen u soo jeedisay qaar ka tirsan maamulka gobolka Saaxil oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo ay sheegtay inuu ku saxeexan yahay waraaq lifaaq oo ay halkaasi ku soo bandhigtay waxaan si gaar ah u cambaareynayaa gudoomiyaha gobolka maxay tolay gobolka jooga Fahmi Cabdi Bidaar waxaan si gaar ah isna u cambaareynayaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee uu gudoomiyaha gobolka u soo qorayo hadii uu ka yeelo arintaasi fusho uu cambaareysan yahay waxaan si gaar ah u cambaareynayaa taliyaha qaybta booliska oo khalado hore badan fuliyay oo uu yahay ninkii qaybta joogay ee dibadda ay kaga imanayaan ciidamadu horena ugu dagaalameen Berbera waxay doonaan inay sameeyeen ciidamo ka yimi Hargeysa si kastaba ha ahaatee waxa ay shacbiga reer Berbera u dhigataageen halka ay arintaasi ku dambeyn doonto Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera.